ceelkan oo fulinayo xafiiska waraabka iyo dooxooyinka dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sida daraasaadka lagu sheegay qorshuhu ahaa in la qodo 550 mitir waxaana biyihii loo baahnaa laga gaadhay 408 mitir. Shacabka tuulada Abuukar Axmed ee degmada Xarshin ayay u ahayd farxad gooni ah markay arkeen taariikhda abid biyihii ugu horeeyay ee qabalahooda laga soo saaro. waxaan ku mahadnaqaynaa ilaahay ugu mahadnaqaynaa madaxda sarafta leh iyo shaqaalaha riigga dhammaan waxaan ugu mahadnaqaynaa biyaha ay noo soo saareen ee ay nooga soo saareen dhulka hoostiisa oo baahi aanu u qabnay xoolaha iyagu ma cabbaan inaanu doollo mooyaane biyo dhanaan ma cabbaan xoolo biyo dhanaan markay waayaan carrana waayaan ma noqonayaan xoolaha iyaga laftoodu marka la eego markaaba way jabaysaa laakiin xoolaha biyahanoo kala cabba laftoodu waa adeeg birtu ma karayso marka waxaanu ugu mahadnaqaynaa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa madaxdana waan ugu mahadnaqaynaa dhulkan imika noogu horeysa waa tii koobaad oo manu ahaan jiray waxaan u dhaamin jirnay dhul fog baan u dhaamin jirnay 22 saacadood oo kala dhaanka iyagu maqnaado oo habeen iyo maalin soconno oo awr dhaamino oo nu buulino xoolaha oo nu hadee midmay maftaasfa badan iyo taraag badan iyo darxumo badan ku gaadhnay alxamdulillah imikana dawladda waan u mahadnaqaynaa noo soo saartay biyaha dhulka iyaga nooga soo saartay jaakooyinka ahaa ee hadee midmay oo manaha ahayd hadii midmay maantana waan u mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol baan u mahadnaqaynaa annagu halkan dhul oo manaabay ahaan jirtay waanaanu baahi badan baa biyaha naga soo martay halkaas 24 saacadood looga dhaamin jiray aanu dhibaato badan oo awr dhaamin jirnaa dhibaato badan baa naga aanu kala kulmi jirnay imika haatadana hadina loo keenay halkan waanu aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa walaalo marka waxaanu doonaynaa idinkoo mahadsan oo idinku mahadnaqayno waxaanu doonaynaa Abuukar Axmed iyo halkan dhibaatada biyo la'aanta haysatay inaanu ka raysano waxaanu doonaynaa inaan loo soo kaxeeyo oo loo keeno magaalada gudaheeda. wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta waraabka iyo dooxooyinka dowladda deegaanka Soomaalida oo ceelbiyoodkan soo kormeeray isaga iyo mas'uuliyiin kale oo wehelinayay ayaa ka hadlay muhiimadda ceelkan uu leeyahay bulshada Abuukar Axmed ee degmada Xarshin isagoona sheegay in biyo gelin looga jeedi doono tuulada goobihii xoolahana loo sameyn doono marka la tijaabiyo heerka biyihiisu ay gaarsan yihiin ceelkan. shacabka tuulada degan waxay ka caawin jireen muddo badan biyo la'aan oo goobaha hadda waxay ka caabaan waa barkado shacabku barkadaha xilliga inta yar ee roobku biyaha u galaan xilliga jilaalku way gudaan marka waxay ku qasbanayeen shacabka meesha ugu dhow biyo laga soo dhaamin jiray waxay ahayd degmada Xarshin magaalada Xarshin oo u jirta 70 kiiloomitir marka dhibaato badan bay ku qabeen shacabka iyo xoolahooda biyo la'aanta meesha ka tirtay xafiiska waraabku isagoo baahida ka duulaya ayuu daraasaad ku sameeyay goobta biyaha laga heli karo daraasaadkan sameeynay waxaan ku soo ogaanay ilaa 550 mitir lagu gaari karo biyo kadib hawsha qodista ceelka ayaa la bilaabay laakiin waa laga maarmay 408 mitir ayaa lagu helay biyihii 550 baa daraasaadku laakiin 408 mitir baa hadda la qoday oo lagu gaaray biyo nadiif oo macaan hadda soo jeedaan waa harqintii ceelka kadib waxa xigi doonta tijaabada kadib waxa la gelin doonaa qalabkii biyaha soo tuurayay bamkii biyaha matoorkii dararkii xoolaha ka cabayeen goobihii dadku ay ka cabayeen ayaa xigi doona waxaan isleenahay ceelkan shacabka degan tuulada Abuukar Axmed iyo agaarkeeda inay kaga bixi doonaan baahidii biyo la'aan haystay. tuuladan Abuukar Axmed ee degmada Xarshin ayaa waqtigan waxa biyo ugu dhow marka laga tago baraagaha iyo balliyada biyaha roobka qabta iyo caale iyo Xarshin wuxuuna ceelkani ka mid yahay mashaariicda laga fuliyo sanduuqa yoolasha horumarka waara ee SDG loo yaqaano ee xafiiska waraabka iyo horumarinta dooxooyinka dowladda deegaanka Soomaalida.